السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسر هذا وردون أكاديمي في كورس ذا لحر اللغة بورتغيسكا. وعن شرحنا مانتنا 10 كوساب سن أما كهالليا بوليسيا إيكونوميكا بوليسكا دقالها و10 لحريرة بوليسكا دقالها أما أنت بدن أي أديكسدان بوليسكا دقالها بوليسيا إيكونوميكا waxaan qiyaasayaa intiina badanna aad tihiin ganacsato sidaa darteedna waa lagama maarmaan inaad garanaysaan erbixinta la xiriirta booliisia economica waa qasab booliska dhaqaalaha inay imaanayaan goobaha aad ka shaqaynaysiin eryo badan oo ka mid a kuwa meeshaan aan kusoo qaadana inaad arkaysid maalin kasta ama aad horeba u maqashay marka si aad u diyaar garowdo oo marka aad la kulanto eryadan aad u fahamto aadna isaga difaacdo waa lagama maarmaan inaad garanayso eryad munaasiba marka booliisia economica waa sidaas booliska dhaqaalaha eryadan booliska dhaqaalaha ayaa adeegsada inta badan ama waxyaabaha dhaqaalaha la xiriira ayaa loo adeegsadaa iyo dokumentiyaasha iyo dukaamada laga shaqeeyo waxyaabaha la xiriira khaasatan wadankan Angola dokumentiyaasha qaar oo meeshan aan ku sheegayo waxaa laga yaabaa inaan wadamada kale laga aqoon sida Brazil iyo Mozambique iyo Portugal iyo meelaha lamid ah in dokumentiyaasha qaar magacyo kale loo yaqaan ayaa laga yaabaa police economic marka waa sidaas fiscal waxaa la yiraahdaa shakhsi wakiil dawlad ah oo shaqadiisu tahay inuu baaritaan sameeyo salaam fiscalização waa iyadoo laga dhigay substantive ama magac fiscalna waa shakhsi fiscal iyo fiscalização waa sidaas fiscalização police economica fiscal waa inta badan arkaysa Angola dad joogto kale inta badan dharka ay wataan ayay kor uga qoran tahay fiscal marka fiscalização waa shaqadooda waa baare dawladda ka socdo waa wakiil dawladda ka socdo oo shaqadiisu tahay inuu baaro waliba qaasatan fishku erga fiscal wuxuu ka yimaada fishku canshuur waay marka fiscalização waa sidaas inspeção peg seeda waxa lagu dhawaaqayaa dhexda ku jirta lagu dhawaaqi mayo inspeção waa kormeer marka booliska dhaqaaluhu ay shirkado kale inspeção ku sameynayaan macnaheedu waxay tahay kormeer ay ku sameynayaan waxay fiirinayaan inay shirkadan u hogaansado shuruucda wadanka iyo wax la midka marka inspeção waa sidaas inspector ay leedahay qofka meesha ka shaqeeyana kormeere inspeção waa shaqada inspeção autoridade waa maamulka dawladda ama maamulka autoridade waa maamulka passe de serviço waa karka shaqada salaan qofka shaqaalaha dawladda u shaqeeyo kala passe de serviço ay wataa marka hadaad ka shakiso qofkaan istiraado been la waaye waxaad dhihi kartaa me mostra teu passe de serviço por favor fadlan karkaaga shaqada i tus sababta dawladda qofkan u shaqeeyo kaar ay siinaysaa passe de serviço credencial ay siinaysaa sidoo kale darto waraaq dheer oo qoran oo kartaa aysan sida kaar u sameysmeen laakiin credencial waa awoodsiin waa waraaqo awood ku siinaya shaqada aad qabanayso credencial waa sidaas passe de serviço waa la mid infração horan soo arneergan waa xadgudub infração waay markaad wax ku xadgudubto ama xadgudub samayso infração ayaad samaysay infringir waa ficil iyadoo ficila waay infração waa substantive ama magac infringir waa maxay xadgudbid waa ficil verbo iyo substantive ay kala yihiin infrator waa xadgudbe qofka xadgudbay waay ama qaladka galay infrator leedahay você é infrator ayaa lagu leeyahay adiga laga hadlayo waxa aad samaysan infração waay ficil ahaana infringir waay marka saddexdaba waa isla hal eray waxa ka dhaxeeya marka xiriirkaas infrator violar ayaa la mid sidoo kale xadgudub violação waa substantive hadii laga dhigo verb markay tahay violar waay ficilada ku dhamaado conjugação gooda horan u soo arnay waqti badan isaga dhuumayo qofkii aan meesha fahansanin dib ugu laabata casharadaas fadlan violar marka violação estourar processo criminal waa in dambi lagu soo ogo qof estourar processo criminal qof ayaa dambi galay marka askartu waxay sameynaysaa estourar processo criminal fal dambeed ay ku soo ogeysaa estourar
processo processo criminal fal dembiet ama processo dembi lagu soo ogo qofka encerrar o estabelecimento encerrar ama encerrar waa in la xiraa o estabelecimento goob shaqo encerrar o estabelecimento waa maxay goob shaqo oo la xiro tusaalahaan xadgudub ayay goobtan shaqada ku dhaqaaqday ama dad ka shaqeeya marka sidaa darteed encerramento ayaa lagu samaynayaa ama in la xiro encerrar o estabelecimento waa maxay marka in la xiro goob shaqo vamos encerrar esse estabelecimento porque você infringiu waxaad ku xadgudubtay a lei vigente no país sharciga waddanka u yaalaad ku xadgudubtay sidaa darteed waa goobtan shaqada waa xiraynaa marka encerramento ama encerrar waa in la xiraa o estabelecimento goobta shaqada não cumprimento de fulin la-aan askartu waxay dhihi karaan oo kale estamos encerrar o estabelecimento waxaanu xiraynaa goobtan shaqada por causa de não cumprimento sababto ah inaadan fulin marka de wixii ka dambeeya markaas sheegaya marka waxaad fuli weyso não cumprimento de fulin la-aanta wixii la fuli waayey meeshasta marka la sheegaya kadib desacato a autoridade waa xushmad darre adoo booliska ama dowladda ixtiraami waayo kale desacato a autoridade ayaa leedahay ama falta com respeito ayaa la mid ah falta com o respeito ixtiraam darro ama inaad ixtiraami weyso askarta desacato a autoridade dembi ayay ka tahay wadamadan in booliska oo kale baaritaanka samaynayo kale hadaad si xun ula hadasho ama aad la shaqay weyso desacato a autoridade ayay kugu soo eedeynayaan sidaa darteed waa lagu xirayaa desacato a autoridade falta com respeito sidoo kale la mid ah in waa maxay ixtiraam darro inaad ku samayso askarta ama aad ixtiraami weyso responsabilizar alguém criminalmente responsabilizar alguém waa in qof dembi lagu ogo ama dembi lagu cadeeyo ama qof qalad uu galay qof qalad uu sameeyey responsabilidade waa taqama mas-uuliyad qof qalad uu sameeyey in mas-uuliyadeeda la saaro waayo responsabilizar alguém criminalmente waa qof in lala xisaabtamo qof in lagula xisaabtamo dembigou galay ergaasaan saari karnaa af soomaaligaas responsabilizar alguém criminalmente waa in qof dembiga uu galay lagula xisaabtamo falta de waxaa la dhihi karaa sidoo kale askartu dhihi karaan falta de waxaa maqan falta de maqnaanshaha ama dukaankii imaadeen oo kale documentiala kaa maqan marka way kuu sheegayaan falta de waxaa maqan alvara commercial waa ruqsada shaqada alvara commercial iyo alvara de prestação serviço waa isla mid waxay ku kala duwan yihiin kaliya waxa aad qabanayso alvara commercial waxaa loo isticmaalaa ganacsiga ama alaabada la gedaya prestação service qofka serviceka qabtana alvara de prestação service ay u baahan yahay waa laba nooc oo ruqso shaqa marka alvara commercial ayaa kaa maqan ay ku dhihi karaan falta de alvara commercial você não pode trabalhar por falta de alvara comercial ay ku dhihi karaan ma shaqay kartid la-aanta alvara comercial alvarana waa ruqsada shaqada Soomaaliyan ruqsada shaqada waraaqda ku ogolanaysa inaad shaqayso alvara de prestação de serviço sidoo kale prestação de serviço mercantis alvara de prestação de serviço mercantis angolo waa laga yaqaana documentation alvara de prestação de serviço mercantis na waa dadka serviceka qabtaan aan alvarada ay u baahan yihiin ama ruqsada shaqada certidão comercial waa shahaadada shaqada certidão comercial waa documento isagan aad u baahan tahay shahaadada shaqada certidão comercial dadka kambaniyyaasha la way yaqaaneen documentation intooda badan u yaalin certidão comercial waa certidão shahaadada comercial ama cadaynta shaqa documentiga cadaynaya ganacsiga aad samayso certificado da habitabilidade certificado de habitabilidade iyadana waa shahaado shahaadada baaraysa ama lagu ogaado qofkan dhaqaaqii shaqadu qabanayo inay tahay qaab haboon uu qabanayo kusaalaan angolo kale wasaaradda caafimaadka ayaa dhiibta certificado de habitabilidade wasaaradda caafimaadka dhib salaan meeshaad ka shaqeynayso soo booqanayaan way fiirinayaan inay u hoggaansamayso meeshu inay tahay meel documential la sii karo ama nidaamka ganacsiga soo martay marka certificado de habitabilidade in booliis ku imaadaan laga yaabaa dukaanku weydiiyaan onde está certificado de habitabilidade haddii aadan lahayn lagu ganaaxa laga yaabaa marka shahaadadaas waa sidaas número de identificação fiscal waa
documentiga dadka lagu canshuuro waaye número de identificação fiscal NIF loo yaqaana dadku waa la soo gaabiyaa NIF bay inta badan dhahan laakiin NIF maxaa lagu soo gaabiyaa número numberka identificação garashada fiscal waa numberka canshuurta qofka lagu canshuuro number qofka lagu canshuuro waaye cartão de sanidade waa kaarka caafimaadka salahan qofka shaqaalaha dukaanka uu joogo cartão de sanidade ayuu u baahan yahay in la soo tallaalo kadibna la siiyo shahaado muujinaysa inuu qofkan caafimaadkiisu fiican yahay oo uusan dadweynaha uu imaanayo dukaanka caafimaadkooda uusan halis ku ahayn waxaa lamid ah bulletin de sanidade ayaa lamid ah bulletin de sanidade ayaa lamid ah cartão de sanidade iyo bulletin de sanidade waa isla mid waa kaar caafimaad oo qofka shaqaalaha looga baahan yahay ama marka uu tallaal qaato cudurada laga tallaalo halista la siinayo licença da publicidade ogolaanshaha xayeysiinta licença de publicidade publicidade waa xayeysiin licensan waa licenka xayeysiinta salahan goob ganacsi markaad joogto boor uu ku dhagan yahay Angola oo kale marka uu ku dhagan yahay xayeysiin banaanka ay dukaan ku dhaganto kale waxaad u baahan tahay inaad qaadato licença da publicidade wax leedahay ama inaad dowladda hoose aad ka soo goosato licenka xayeysiinta waa waraaq sanadkiiba hal mar aad bixinayso diario da república journalka dowladda waaye diario da república diario da república waxaa laga soo qaataa madbacadda imprensa nacional ayaa laga soo qaataa ama madbacadda qaranka ayaa bixisa waxyaabaha sharciga iyo documentayaasha iyo meesha halkaas lagu daabacaa waa journal dowladdu ay leedahay marka diario da república waa sidaas fixar horário de funcionamento fixar waa in la dejiyo horário de funcionamento waa shaqooyinka saacadaha shaqada boolisku inta badan markay meesha imaadaan way fiiriyaan dukaankan saacadaha uu shaqeeyo waa maxay haddii marka ay ka waayaan documento muujinaya saacadaha aad shaqeyso fixar horário fixar waa dejin darbiga lagu dejiyo horário de funcionamento tusaalaha subaxdii soo gasho ilaa galabtii waa inaad sheegtaa saacadaha aad shaqeyso haddii saacada break ay jiraan maalmo aadan shaqeyn haddii ay jiraan fixar horário de funcionamento marka waa sidaas visto de trabalho para estrangeiro visto de trabalho waa fiisaha shaqada para estrangeiro qofka ajnabiga laga rabo visto waa maxay fiisaha de trabalho fiisaha shaqada para estrangeiro oo qofka ajnabiga laga rabo ajnabiga tahay dukaanka ugu imaada visto de trabalho laga rabo wadanku hadduu qaxooti dhibana kaar qaxootiyaan ay sidaa dhigi kartaa markaas administração laakiin lama ogola fiisa dalxiis iyo inaad ku shaqeyso visto de tourism adoo ku shaqeynaya haddii lagu yimaado goob shaqo waa lagu xirayaa marka visto de trabalho waa inay noqotaa fiisaha ku shaqeynaysaa administração geral tributária administração geral waa maxay maamulka guud tributária ee canshuurta AGT ayaa meeshan loo yaqaana marka AGT administração geral tributária waa kana meesha isku qor AGT ayaa lagu soo gaabiyaa waa maamulka guud ee canshuurta tusaale Angola AGT ay leedahay wadan kastana urur sidaas oo kale u taagan uu leeyahay Mozambique aad joogto marka raadi magacooda Portugal hadaad joogto Brazil hadaad joogto Guinea Bissau meeshaad joogtaba oo luqadan Portugiiska looga hadlo qasab ma in AGT wadan kasta joogto laakiin wadanka asaga sameeysta ee laanta u qaabilsan canshuurta iyo magaceedaba marka tusaale Angola AGT ay leedahay ama Administração Geral Tributária fatura certificado pela AGT askartu markuu imaadaan waxay ku weydiin karaan kale fatura certificado pela AGT inaad rasiibka ama aad faturada aad jarayso ama dad customka aad siinayso inay tahay mid ay AGT aqoonsan tahay ama shahaado soo siisay software licenciado pela AGT software sidoo kale haddii aad ku shaqeyso software computerka lagu shubto ee faturooyinka lagu jaro fatura rasiibka dad customka la siiya leeyahay markay wax gataan waraaqda la siiya leeyahay fatura marka fatura certificado pela AGT wana haysataa ama software licenciado pela AGT hadii kale waa software ee AGT ay aqoonsan tahay waa inaad haysataa in lagu ganaaxa laga yaabaa declaração de rendimento waa documento ku dhawaaqaya lacagta ku soo gashay ama lacagta dukaanka soo gashay declaração cadaynta ama ku dhawaaqitaanka rendimento waxyaabaha dukaankan oo sameeyo ama soo gala waa inuu waraaq ku qoran tahay si loo adhow loo baaro loo ogaado canshuurta aad bixinayso iyo lacagta ku soo gashaa inay isleedahay iswaafaqsan tahay marka percentage-ka lagu dhifto marka declaração de rendimento waa sidaas dadka contabilista la yiraahdo ama waxa laga la xiriiraa oo inta badan kambaniyasha nidaamyaan qofkii doonaya inuu kambanigiisa nidaam u sameeyo waxaad u baahan tahay contabilista qofa ama shakhsi shaqadiisuba ay soo bartay contabilidade oo shaqadiisu tahay nidaaminta xisaabaadka iyo waxyaabaha la midka
iyo bixinta canshuuraadka iyo marka contabilista ama contabilidad aad u baahan tahay adiga kuma qasbaneed adoo ajnabi iyo laga yaabo luqadii wixii aan si fiican u fahmayna documentation iyo nidaamka oo dhan in adigu raadiso kuma qasbaneed contabilista raadso marka lacag siyaasad pagamento de imposto canshuurta la bixiyo pagamento de imposto waa maxay canshuurta la bixiyo away lagu dhigi karaa tanto documentos de pagamento de imposto documentation canshuurta aad ku bixisaa way tipos de imposto marka noocyada canshuurta kuwana kamid ah ma wada ahan dabcan laakiin kuwana kamid ah imposto de selo waa maxay waa canshuur la dhiibo waxyaabaha aad gado maalin kasta canshuur laga bixiyo imposto de selo ayaa la yidhaha imposto de selo canshuurta selo erga ah ama seal ama selo frangabola in Soomaaliga frangabola inuu yiraan maleynaya luqad kale ka yimaadana ma garanayo waa sticker yar oo lagu dhajiyo meelaha inta badan canshuurta iyo marka imposto de selo waa sidaas Angola markaad joogto kale waxa aad gadayso boqolkiiba hal ayay dawladdu ku leedahay marka imposto de selo ayaa la yiraahdaa percentage-kaas boqolkiiba halka ah imposto de selo ayaa la yiraahdaa boqolkiiba hal waayana imposto sobre valor acrescentado imposto sobre valor acrescentado canshuurta qiimaha dulsaarka ah ama qiimaha la kordhiyay ah IVA ayaa loo yaqaana IVA caalami waaye IVA inta badan wadamada waa laga isticmaalaa dunidooda VAT na waa la yiraahdaa IVA na waa la yiraahdaa markii Portuguese tahay English kana VAT marka imposto sobre valor acrescentado imposto predial dukaan waxa dhiibaan guryaha kale guryaha kiradooda iyo guryaha dad kale imposto predial ay dhiibaan IVA laakiin ganacsiga way la xiriirtaa iyaduna IVA imposto industrial waa canshuurta sanadlaha ah goobihii ganacsiga canshuur sanadlaha ay dhiibaan canshuur maalinlaha iyo canshuur sanadlaha canshuur waxa jira mar kasto aad wax gada laga rabo waa imposto de selo canshuur sanadka oo dhan xisaabta inaad hal mar soo xirta laga rabana waa jirtaa imposto industrial leedahay kolley canshuurahan waxay ku xiran yihiin nooca kambaniga adiga aad leedahay kambaniyasha qaar ayaan industrial laga rabin lagama rabo qaaraan IVA laga rabin qaar baan kolley ganacsiga adiga waa sababtaan ku leeyahay contabilista ayaad u baahan tahay qof shaqadiisuba ay tahay xisaabiye ayaad u baahan tahay oo qof xisaabta xiri kara imposto sobre o consumo canshuurta isticmaalka ama cunitaanka waxyaabaha tusaalaan maqaayadaha intooda badan qofku inta wax ku gato meesha uu ku cuno oo kale ama ku isticmaalo imposto sobre o consumo ayaa loo yaqaanaa imposto sobre consumo imposto especial de consumo waa idan waa jirtaa IEC loo yaqaan IEC imposto especial canshuurta khaaska de consumo customka qofka waxa uu isticmaalo laga qaado imposto sobre o rendimento do trabalho imposto sidoo kale waa canshuur sobre o rendimento do trabalho wax soo saarka qofka laga rabaa ERT kambaniyasha qaar ERT ay bixiyaan marka ERT qofka bixiya kuma qasbana inuu bixiyo imposto industrial inuu bixiyo kuma qasbana salaan kambanigan magacaaga waaye kambaniyasha dhowr nooc kala leeyihiin mid waa sociedad oo dad badan ay ka dhaxaysaa mid waa nome individual qof shakhsi ah iskale marka nome individual haday tahay kambanigaagu ama adiga aad leedahay kaliga inta badan waxaad bixinaysaa ERT ayaad bixinaysaa imposto de rendimento do trabalho você ERT imposto sobre veículos motorizados waa canshuurta gawaaridu dhiibaan gawaarida ama mootooyinka iyo waxba la mida dhammaan inta motor loo dhanaa bixiyaan imposto sobre veículos motorizados marka waa sidaas canshuurta dhammaan ay bixiyaan inta motor kale ama baabuurta ama mootooyinka wax dhan isku daraday aad u fudud yahay ashirkan albar oo bobsiisan kormariya fiscalização inspeção autoridade passe de serviço credencial infração infringir infrator violar violação instaurar um processo criminal encerrar o estabelecimento não cumprimento de desacato à autoridade faltar com respeito responsabilizar alguém criminalmente falta de alvará comercial alvará de prestação de serviços mercantis certidão comercial certificado da apetibilidade
Certificado de habitabilidade, número de identificação fiscal, NIF, cartão de sanidade, boletim de sanidade, licença de publicidade, Diário da República, fixar horário de funcionamento, visto de trabalho para estrangeiro, Administração Geral Tributária, fatura certificado pela AGT, fatura certificada pelo AGT, fatura certificada pela AGT, fatura certificada pela AGT, software licenciado pela AGT, declaração de rendimentos, pagamento de imposto, tipos de imposto, imposto de selo, imposto sobre o valor acrescentado, IVA, imposto predial, imposto industrial, imposto sobre o consumo, imposto especial de consumo, imposto sobre rendimento do trabalho, IRT, imposto sobre veículos motorizados, هذه هذو فضيانة فانتنا إن شاء الله 10 كوحيقنا وحو لا سocon doonaa kan iyadoo jumlada in sha Allah ama askartu markay dadka la hadlayaan iyo waxba ay isweydaarsadaan ama kuwan waa erbixin qaar kamid laga yaabo erbixintan mar kale kor marno aad iyo aad u mahadsantihiin. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.